سلمان يا أبو درداء النبي ولا لي سلمان يو أبو درداء سلمان با سوز زيارة أبو الدرداء حاسكي أبو الدرداء وحو أركي أم الدرداء يو جركيغا كم وقتنا فقدروا ودركيغونا ماركتانا كدل قوقعي مركز كل وما حن ولسنا تكون نوشة وعي كتير صاحبك دنينا ديوبا ما هو ديوب مضون وكقالة الفرح ويدعوا يسموك ولا الكا أبو الدرداء سلمان ولا الكا أبو الدرداء لا يريد الدنيا لنا ديوب دون إماه سقعد نوشة تجي لها ودرك نجا بدل لها ومصاريف نوكين لها سوما هنا سقعد نجا مسؤولها لنا ديوب ما فروك قاد ديوب قالوا إيه وسوقي وفرست أبو الدرداء وسعداء يمده مركز يكتير ولا الكا سلمان بفرديو كسوقي يدبده مركزه ويمده وسلامي cunta marka ayuu soo qaaday cuntadiiba u dhigay markaas uu ku yiri de fadhiiso ila cun markaas uu ma anu waan soomanahay suuf soonka jabi buu ila cun la sunnah oo la cun habeenkii ba markaas garab seexdaan marale markuu Salmaan uu dhinaca dhulka dhigay oo Abu Dardaana uu leeyahay Salmaan uu ka seexday markuu yiri isla markii Abu Darda salaad buu kacay Salmaan baa yiri war yaa seexo ساحو جوج صلاته وساحيه بس في عن هذا الكود دغيسته ميل بان سوده هذا كل كل ملها او كا جمعي بو هدنا يركعيو markaas uu war saaxo marka kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya waqti sahar saacadii dambe yiri imika ka hadaba awada tukana labadeen way markay wada tukadeen ayuu fariisiyo wuxuu ku yiri war yaa Abu Dardaa uu dhageyso rabbiga xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay deemid walba xaqiisa si buu ka yiri iska aamus Abu Dardaa ilaa waan xalay salaad leelkiisa laga kala daadiyay oo soonkiina laga jabiyay waliba dardaaran la siiyay ma harine intuu soo socday buu nabiga ku soo dacweeyay وعلى يا رسول الله سلمان بأي مدو صون كيجينا ويجبيي صلاة الليل كي حالة تولنا ويجمع عيي هذا هل كان جوجو مرجعي النايا أيو هذا الكايسقون يقولي مرجع النبي يقول محيري صدق سلمان محيري صدق هه محوك يقولي وحي يقولي نفتو حق بك وقول هذا حي إهلك حق بك وقول أي حي ربك حق بك وقول أي حي ده مدول بحقي سسي مرجع أبو النبي يقول صدق سلمان رمبو شيء قبيل حديث كان نيكا لوgu akhrinay waa Abu Dardaa mise waa inaka bali sheega xadiiska ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhan soomana adduunyada faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninka maahin anigi adiga maaha دائما جماعات واسكت قانانو نبا بري افرت العشاء كحيني مد با قبطو حديث كاسو كو اخريه marka uu yimid oo wuxuu Sheekh Xusseen anu inii mar raacay buuli ha xadiis adiga qariseen ba la sheegay buuli markaas aan ku yiri baxo hada xadiis way badantay anagu culimo ma niine arday wixii culimada ka soo maqleen dadka u sheegaanay muxuu ahaa xadiisku waa sadaq waxa la igu yiri naftu xaq bay kugu leedahay laantu xaq bay kugu leedahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay de markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyada iga soo kaxayseen de aw xuquuqdiisa umada yicin buu war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeeni baa dulman maanta waqtigeeni adduunyada u batay bis aakhirada baliga jawaaba midku u batay waqtigeeni adduunyo u badan yahay qalbigeena maanta maxaa ku weyn adduunyo mis aakhirada adduunyada ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadho way taabanaysaa saadarteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican
وانا ولا له إلهي ما ولا لك مسلمين وحي ولا لكويهن ومحي الإسلام دين تا إسلام كان ولا لكنا هاي دين تا إسلام كنا نسكو قدرنا لنا قدونا ولا ليال وقفك مسلم كلمة ولا لك مسلم كهداد واحترين شركة قومتك هايس على كل مسلم صدقة واقو مركو بريبو رسولك يري قفك مسلم كصدقة لقرب هينو ديبو إن لم يجد بيد هدو هايسنة فيعمل بيده قعنتي سو شغكو أبوري بو نبي قولي فينفع نفسه نفتي سنة وحبو طري ويتصدق ولكن سنة مسلم كانوا صدقة سنة وصين مركاسو إن لم يعمل هدو سمي صدانا مركاسو نبي قولي يعين ذا الحاجة الملهوف قفك دباتي سن الله إتال شيكتي أما قفك كربض وهيستي مظلومك أيو حوقي سكو عاون وقرمن أو حولي ورنيكا ولا قردرة كدايا أو ظلمك نقدايا هدونا سدا سمين بالنبي قال لي وعو النبي يقول يأمر بالخير تدكو وانا قفري هدونا سدا سمينا شركي سوء مدك هايسن ومالك لا فريسن انت ما قفك مؤمنك صدقه وقف لهم رسولك يدي والمسلمك waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto oo cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo aqligaaga wax ku tarto oo xoogaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto hadda inta midna laga waayay sharka adiga ilaahay kugu abuuray ummadda meel kala fadhiiso oo xadiista ay sordhig sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun bu nabigu qofka muslimka ayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa dilkiisana waa lagu gaaloobo rasuulku yiri marka dadka muslimiintu walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tiraahdaa anigu han walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghazwadi yarmuuk saddex nin oo asxaabtii nabiga maxamed ka mid ah ayaa dhaawac halisa lagu soo gaaray marka kii horeeyay la gaaray wuxuu leeyahay biyo igu qabta cikrimoha markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kale oo ka shisheeyo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadhay biyaha kiiba lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninna uu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbiday uu leeyahay isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anu han dhinto walaalkay han noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anu han noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa jooga muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaad ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiisku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji مسكيتك النبي قال صلى الله عليه وسلم وخزرجي هل وحافظ الأنصار أوس خزرج وهاجرين حلقات وحدولتك بلال يا سلمان يا عمار يا فديان مرقاسوا كوا هديت ولا محل وقبها حي هيقول كوا نينكو تولكي بو هلاي
معاذ بن جبل بانك هلكا قبتي وما تري وان كفتمنا هذا كان وان إليه مركز معاذ هلكا يسوق أيو نبي نيك وجي صلى الله عليه وسلم مركز رسولك وجيجي بدل مي مساجد كو صوق لمنبر كو فولي صحابتي ودم الله ولا يري خطبة النبي كو بلابا خطبة دير ما هنا خطبة قابن بها يدحو يري ورياض الربيين وامد كليه بيقولي دين تيننا وامد كليه عربيتنا أبي هو ينما أبو كيدي فمن تعلمها أنك اللغة العربية وهذا الكي قبرتي وعربي انت أمركو النبي يقول خطبة كذا داعي معاذ بن جبل ولي نك هالكي وحيا كان النبي الله محاذ ورم بوكيدي كا نار تؤدى وري نار تاكا فلان نار تؤدى بوكيدي maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmadda wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetool waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddee toole kelmadda uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilaahay ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay marka ikhwata aliimaani walislaam khayr baa inaga muuqda dad muslimiina oo luqo keliya ku hadlayaan nahay inaku ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa noo nicmeeyey wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaabillahiya iyo maaragtaani madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashki imika مطعما كعنتيني نبان يان كو ارغن nin dhalinyaro sacuudi oo surwaal gaaban halka ku jooga sita jiwaar masjid an-nabawi agtiisa مطعم masaajidkii nabi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaban sita sheekh ismaaciil baa yidhi bil xuseen oo eeg buu yidhi haan eega baan ka yidhi sheekh wax laga murugooday jabuuti oo wadan uu gaal isticmaalsanayayna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacawiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiyey ilahay aan ugu mahadinno la in shakartum la aziidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru ljawaarix بالحمد تدوم النعم وبالشكر تزداد النعم حمدك وكعرب كويان شكرك وكعمل كويان صلاة الليل كنبي وكعي ركعات كلي وكنت قد شن جزء بد إلى لغيه برين عائشة كتري لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر محوك جوابي أفلا أحب أن أكون عبدا هذا هو الشكر marka nicmadda ilaahayna siiyeyna ku shukrino oo masaajiddeena tacliinteena dacwadeena khayrka ka wada shaqeyna soo diyaar manihin insha Allah dhahada waan soo ziyaaranay saad noo soo dhaweyseen ardaydiina culimadiina quraadiina Allah inii soo dhaweeyay ninkana anaguna Jabuuti baan ugu soo dhaweynaa noo kaalaya insha Allah ya reen Nairobi rays lima socotaan maxay nagu dhacay waxu baad dhisaysan aqla dhaadheer إن شاء الله خير كانوا وانبيريننا صو ديار منهن ذنبنا الله هداف ذنبك والدينتنا الله هداف دينت الله إنه معانيو مركنا الله شافيو موتاتنا الله هو نحريست مسلمين تميل جوغان كربدا يعريرك الله كقاضو موافقين من من مسلمين تميل جوغان الله سيو اسمع ذكر الله إن هديو صلى الله على نبينا محمد